question kan ayaan haysanaa ku saabsan related rates. Marka waxaan haysanaa waxaa lagu dhahay haddii if x is equals to y cubed minus y, x hadday la mid tahay y cubed minus y, dy all over dt na ay tahay 5. Marka what is dx all over dt? Y markay la mid tahay 2. Y markay la mid tahay 2. Marka questionkaas ayaan ka shaqeynaynaa. Marka related rates ay la xiriirtaa. Marka functionkeenu waa sida tan: x is equals to y cubed minus y. waxaana la ka rabaa inaan soo saarno midkan dx all over dt. marka informationkana waana la siiyey. marka waxaan sameynaynaa derivative-ka labada dhinacba derivative-keeda ayaan raadinaynaa. marka waa d all over dx, waxaan ka wada d all over dt, because waxaana la ka rabaa inaan raadino dx all over dt. marka variable-keenu waxaa weeyaan differentiation-keenu waa with respect to t. marka waa d all over dt. marka d all over dt of x ayaan raadinaynaa midkan, kadibna waxaan raadinaynaa d all over dt oo qaybtan ah. marka qaybtan waxay noqonaysaa y cubed minus d all over dt oo y keliyata. marka d all over dt of x waa iska dx all over dt, waa iska dx all over dt ay noqonaysaa. derivative-ka x waa iska dx all over dt. marka derivative-ka y cubed with respect to t na waxaa weeyaan waxaan isticmaalaynaa outside inside rule-kii. marka y cubed marka koobaad functionka kore ayaan derivative-kiisa raadinaynaa. marka 3 ayaan soo dejinaynaa. marka waxaa noo soo haray y squared. kadibna waxaan raadinaynaa derivative-ka functionka gudaha ku jira oo y ah. marka waxay noqonaysaa dy all over dt, dy all over dt, dy all over dt. marka meeshana derivative-ka minus derivative-ka dhankana waa iska noqonaysaa minus dy all over dt, minus dy all over dt. marka midkan waxaan isticmaalaynaa waxaa weeyaan outside inside rule-kii. marka y-gu waa functionka gudaha ku jira, cubedna waa functionka ay sheegtid outside functionka. marka sidaas ayaan derivative-keeda ku raadinaynaa. marka waxaan rabnaa inaan raadino value-ga midkan. marka waxaan ognahay y inay la mid tahay 2. waxaan kaloo ognahay dy all over dt inay la mid tahay 5. dy all over dt inay la mid tahay 5, y-na inay la mid tahay 2. marka hadda waa substitute garaynaynaa. marka middan waa iska 3y squared. marka waa iska 3 times y then waa 2, y then waa 2. marka 2 squared na waa iska 4. dy all over dt na waa iska 5, waa iska 5. marka kadibna waxaan ka jaraynaa dy all over dt oo 5 ah iyadana. marka meesha maxaa noo soo baxay 3 times 4 waa 12, 12 times 5 na waxaa weeyaan waa 12 times 5 na waxaa weeyaan waa 60. 60 minus 5 na waa 55, waa 55. sidaas ayaan ku keennay functionkan dx all over dt value-geeda waa 55.